سلام صاحبي أنا عبد الجليل عثمان waxaan dib u soo celinay muuqaaladii review-ga aan ku sameynay product-iga maanta waxaan rabnaa in halkan aan ku furno mid kamid ah lensyada aan ugu jeclahay marka laga hadlayo Canon marka la joogo Canon ama guud ahaan marka laga hadlayo dhinaca media marka laga hadlayo waxaan unboxing ku sameyn doonaa dream lens ama lens ka riyada qof kasta uu jecel yahay hadii aad tahay qof filimada duuba hadii aad tahay qof aroosyada duuba hadii aad tahay qof xafladaha duuba hadii aad tahay qof portrait sawirada qaada wildlife nooc kasta oo la xiriira muuqaal sameynta hadii aad ku guda jirto dabcan waxa aad tahay qof jecel ama xiiseeya lenskan waxaan ka sheekeyn doonaa sababta ugu kaliftay lenskan in aan iibsado faa'iidooyinkiisa qasaarihiisa iyo waxyaabaha aad kula kulmi doonto ugu dambeyntiina waanu unboxing ayaan ku sameyn doonaa tijaabooyin muuqaale iyo sawirro ayaan ku qaadi doonaa lenskan sidaan u amaanahay waa lenska loo yaqaan 70 to 200 f2.8 waana Canon lensyada Canon ayuu ka mid yahay ama wax loo yaqaan RF mirrorless lensyada mirrorless-ka lagu xiro waay 2.8 ama f2.8 ayuu yahay aperture-kiisa lenskan waxaan soo iibiyay isbuucan maybe qaarkiin Snapchat inaad ka aragteen laga yaabaa isbuucan ayaan soo iibiyay sababta ugu dhalisay baan rabaa inaan gudo gala marka ina keena intaan furin oo aan unbox ku sameeyno waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo bishii February ee sanadkan 2024 waxa shaqayr ayaa ii soo dhacday Kenya waxaan raacay wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Kenya William Ruto iyo wasiirkii difaaca Kenya ee hore aadan barre ducaale waxaan u raacay magaalada Garissa marka muhiimadda waxay ahayd inaanu kabjar gareyna aan qabanno safarra socdaalkii madaxweynaha Kenya ee gobolka Qoy Bari uu ku tagay iyo wasiirkii difaaca ma aadan barre ducaale oo markaas wasiirka wuxuu ahaa deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayuu ahaa soo wafdiga ayaanu la soconaaday janigiisa ayaanu qayb ka ahayd marka waa taqaanaa marka madaxweynayaasha ay safrayaan head of state madaxweyne markuu safraya ama khudbad uu jeedina ama meel uu tagay waxa la socday security details ayaa la socda ama dad security ka shaqeeya baa ku hareeraysan oo different layers like dadka close protection ka dadka dhexe askarta booliska soo marka madaxweynaha inaad gaartaa ama aad muuqaal ka duubtaa ama sawir aad ka qaadda waqti dheer bay kugu qaadanaysaa haddii aanan haysanin lens ka loo baahan yahay marka anigu waxaan haystay 50 mm iyo 85 mm baan labadaas lens ayaan isticmaalay marka waad garan kartaa distance-ga labadaas lens ay wax ka qabanayaan marka waxaan u baahday lens distance aan ka fogaan karo madaxweynaha ma gaari kartid madaxweynaha stage-kiisa marka waxaad u baahan tahay madaxweynaha ilaa inta macquulka inaad ka fogaato because security protection kuma ogolaanaya inaad madaxweynaha u dhawaata si aad sawir ugu qaado ama muuqaal aad u qabso wariyaashii iyo dadkii kale wafdiga la socday madaxweynaha meelo fog ayay stage-ka ka istaageen oo ay khudbadaha ka daawanayeen laakiin ay ka duubanayeen laakiin anigu waa igu adkaatay in madaxweynaha aan u dhawaado isla markaana aan sawirro ka qaado ama muuqaalo aan ka duubo waxaan ahaa qof shaqadaasi loogu talagalay inuu soo qabto oo wafdiga la socday ayaa ahaa marka lensyada ugu badan amaba teamkii muuqaalada iyo sawir qaadayaasha ay madaxweynaha Kenya markaas la socday waxay isticmaalayeen 70-200 lens kale ay isticmaalayeen marka aniga marka baahida markaas ay igu dhalatay bishii February ayaan dhahay okay fiilkii waad ku jirtaa waad ku shaqeysaa kama maarantid marka waxaad u baahan tahay waxay tahay inaad iibsato 70-200 mm f1.2 marka sababtaasi ayaa horta aniga u dhalisay lenska inaan iibsado muxuu fiican yahay lenskan horta waan furi doonaa aanu unboxing ku sameeyna dhag aanu eegna bal okay gudihiisa waxa ku jira marka intaan u guda galino faa'iidada iyo sababaha lenskan u iibsanaysa iyo tijaabooyinkiisa waxaan rabaa inaan horta box ka furno boxkaas ayuu ku jiraa magaciisa hadii aad zoom garaysa saaxiibaad aragtaan waa 70-200 mm f2.8 L series waa lensyada L waa taqaanaan Canon soo bismillaahir rahmaanir rahiim waanu fureynaa insha Allah dawaleed halkan warqadihii iyo wixii uu ku imaaday ayaa ku jiro halkan always the Canon waa taqaanaa protection ka soo waxa ku jira coverkii loogu talagalay ayaa ku jira oo aad lens ku qaadan lahayd oo aad lens gelin lahayd hoodie coverkii madax laga gelinayo waay bismillaahir rahmaanir rahiim soo waanu fureynaa yeah guys okay finally saaxiibayaal waa aragtaan lenskii waa kan this is the lens saaxiibayaal hadii aad arki kartaan lenskii ayaanu gacanta ku dhignay waa kan lenskii waa kan waa RF f2.8 70-200 mm waay so big hoodie buu madaxa ku wataa waad aragtaan madaxa ayuu alaabtaan buu madaxa ku wataa wada taqaanaan soo
So this is the lens guys aan sharaxaada ka bixinaya aan toddobaadkan soo iibiyey. So lenskan is quite heavy waan ka hadli doonaa faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa, advantages ama disadvantages waan u guda gali doonaa. Laakiin horta unbox markaan ku sameynaysan ayuu egyahay. It's amazing. So dream lens xaqiiqada marka laga hadlo I've been like wax badan baan raadinaya. So from February ilaa hadda baan lenskan goobay. So haddii ay noqon lahayd waqtigii aan ku raadin lahaa iyo qarashkii lagu soo iibin lahaa iyo in nafta laga dhaadhicay, waxaa jira qaacida ayaan adeegsaday oo la dhahaa budget boss oo ah in marka aan wax iibsanayo aan yara boos gareeyo horta aan sugo oo aan u raadiyo sababa aan waxaas u iibsanin. Qof kasta technique aan kula talinaya haddii aad dhalinyaro tahay kaarkaaga maybe uu bangiga uu kugu jiro maybe Apple Wallet ama Google Pay waxaas uu kugu jiro wax gadashada aad bay kugu fududahay, ama haddii aad kaar bangi haysto wax inaad gadato spend gareys aad bay kugu fududahay. Marka aniga markaan rabo inaan wax iibsado hore wax igu soo dhacan waxa inaan for example saacad baan rabaa ama lens baan rabaa wax baan rabaa, waxaan sameeyaa qaacida la dhahaa budget boss oo ah in bal wax yar aan boos gareeyo aan sugo oo aan dhaho okay waxaan ma u baahan tahay horta ilaa intii ayaad u baahan tahay ilaa intii ayaad ka maarmi kartaa maybe so waxyaabahaasi dhan baan khiyaasaa marka boos baan garaa. So aniga waxay igu qaadatay from February ilaa hadda ba inaan nafta ka dhaadhicinayo way u baahan tahay 7200, laakiin ugu dambeyntii finally conclusion waxaan gaaray inaan u baahannahay lenskan oo aan ugu baahannahay wareysiyada iyo barnaamijyada mustaqbalka aanu qaban doono shirarka iyo corporate la xiriir. Corporate waaqyada ayuu aad muhiim ugu yahay. Marka bal faa'iidada haddii aanu eegno lenskan haddii faa'iido koobaad haddii aanu helno waa versatile waay ama waa flexible bas dhinac kale haddii aanu u guda gala oo ah haddii aad portrait sawirro qaada oo aad aroos iyo xaflada iyo shirar aad ka qaadaysa this lenska aad u baahan tahay. Haddii aad film duubaysa this the lens aad u baahan tahay. Wildlife ama haddii aad xoolo iyo waxaas sawirayso oo aad distance u baahan tahay inaad ka fogaato this is the right lens aad u baahan tahay oo shaqadaasi ku qaban doona. So this is versatile way oo waa lens must have by dhahan gaalada oo qasab ay tahay inaad haysata. Waa very versatile, wax kasta shaqo kasta nooc kasta oo shaqo ah ayaad ku qaban kartaa. Tan labaad aad lenskan u iibsan kartaa waxa uu yahay aperture-kiisa waa f2.8 oo marka f2.8 marka laga hadlayo wuxuu ku siinayaa blurry background oo ku siiya ama this bokeh oo quruxsan aad aragtaan sawirada noocaan ama muuqaalada noocaan laga hela lensidan ayaa lagu gaaraa oo f-stopkiisa uu yar yahay. So f1.2 lens markuu yahay waa dareemi kartaa waa lens aad f-stopkiisa uu yar yahay isla markaana very versatile ah oo shaqo badan oo noocaasi ah ku qaban doona. sababta saddexaad lenskan 7200 aad u iibsan kartaa waxa ay tahay waxa loo yaqaanaa image stabilization. I mean inkastoo Casey Neistat uu dhahay 99% shootka waa inaad la loo gareeyo oo tripod lagu xiraa, laakiin mararka qaarkood waxa laga yaabaa inaad handheld aad sawir ku qaado ama handheld aad muuqaal ku duubto ama gacantaada adiga oo adeegsanaya. Marka wuxuu leeyahay image stabilization aan caadi ahayn ilaa iyo 4 stop ayuu leeyahay, taasi oo lenskan sidoo kale ka dhigi karta lensada ugu qiimaha badan ee qofka fiilkan media ku jira uu adeegsan kara. Marka haddii maybe uu qofka ordaayo haddii aad sports aad duubayso oo qofka sports waa taqaan qofku ordaya kubad ayuu ceersanaya qof kale ayuu ceersanaya. So marka aad eegaysa dhinaca loo yaqaan stabilization waa lens aan la ordi karta, laakiin stabilization ilaa 4 stops ayuu leeyahay. Waxayna ka dhigan tahay sidoo kale sabab weyn oo saddexaad oo aad lenskan u iibsan karta. Sababta afraad anigu aan lenskan ku jeclaaday ay Canon de mucjiso ay ku tahay waxay tahay waxa loo yaqaan autofocus-ka. Adigoo qof focus gareynaya ayaa laga yaabaa in 50 qof ay qofkii soo hormaraan ama qof baad distance ka shoot gareynaysay 20 qof laga yaabaa qofkii inay soo hormaraan. So qofkii ayuu ku howlgareynaya autofocus cajiib ayuu leeyahay oo qofka ayuu haynaya. Haddii qofkii qof uu hormara ma sii daynaya qofkii waxa laga yaabaa qofka hor inuu qabta, laakiin at the end qofkaas markuu gudbaa ama waxaas markay gudbaan qofkii originalka ahaa subjectiga ayuu dib ugu laabanaya. Marka autofocus-kana wax kale oo cajiib ah ama sabab kale oo aniga cabdijiil ahaan igu kaliftay in aan lenskan adeegsada. Sharpness waa taqaanaan waa very sharp way saaxiibayaal. Sharpness marka laga hadlayo iyo quality sawirada aan ku qaadnay waan idin tusin doonaa. So sharpness-ka lagama sheekeyn karo sidoo kale waa wax cajiib ah oo aan
aan anigu aad u jeclahay I mean colorka iyo contrastiga lens markaanu Canon ka hadlayno dabcan waana naqaanaa dhinaca colorka Canon color sense-keeda cajiib waaye Sony iyo kaamirad kale ku gaari karta maalinta contrastiga iyo colorkana marka laga sheekeynayo saaxiibayaal waa wax kale oo cajiib ah ama sabab kale oo aniga aan lenskan cajiib lahaan aan ku doortay so waa legendary image quality ayuu leeyahay saaxiibayaal sharp waana rich bokeh ayuu leeyahay oo background oo smooth ah oo aad arki kartaan oo sidan cajiib u ah quality saaxiibayaal waxyaabaha kale aan lenskan ku jeclahay waxa kamid ah quality saaxiibayaal oo la xiriirta weather sealing hadii aad maybe aad meel qorraxda extremely hot hadii aad wax ku duubayso ma ka walwalayso inuu lens ka kulaado inuu kaamirada cilad u geysto kama yahabees hadii meel freezing ay qabo ama ba Europe joogta oo sidoo kale ka walwalayso dhinacaasina kama walwalayso oo leer dhinaca weather sealing waa wax cajiib ah oo Canon ay ka taxadirtay oo aad ugu fikirtay waaye marka waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso disadvantages lenska maxaa kamid ah waa inaan runta soo sheegnaa wax kasta faa'iido saaxiib qasaare ay leeyihiin disadvantage-ka waa inaan ka sheekaysanaa lenskan disadvantage-kiisa koobaad waxa kamid ah ninka hadba sidoo dhahay waa qiimaha it's fucking very expensive saaxiib lenska aad buu qaali u yahay anigu wuxuu noqonayaa saddex lens baan isticmaalaa 15.5 baan isticmaalaa 50 mm baan isticmaalaa 85 mm baan isticmaalaa waxa uu ka mid noqon karaa lensada ugu qaalisan ee aan iibsaday ayuu noqonayaa oo lenska anigu wuxuu igu fadhiyaa 3450 gini oo lacagta Ingiriiska ayuu igu fadhiyaa oo marka dollar loo bedelo saaxiibayaal waxa ay noqonaysaa 4600 qadaadi 4600 dollar ayuu noqonayaa so waxay advantage-kooda waxa is fucking very expensive lens way oo ay adag tahay qof kasta oo hobbyist dadka ay dhahaan waxyaabaha foofaanka u sameeya ama hobbiga u sameeya hadii aanay waxba ka soo galaynin aanu ku dhiiranaynin in lenska intaas la eegay 4000 uu ka bixiyo laakiin hadii aad tahay qof wuxuu ka soo galayaan wax yar iyo wax badan waxay ahaadaanba waxa laga yaabaa hal project laba project lenska inuu ku soo celiyo oo aad ku qabato si fiican for example the project-da waaweyn oo caalamiga ah ama corporate hadii ay ku soo dhacaan oo ay ku soo baxaan this is the right lens oo saaxiibayaal ku ka fargareyn kara isla markaana shaqadan ku qaban kara waay disadvantage-ka kale ee uu leeyahay is kind of heavy 1.5 kg way saaxiibayaal way uu yara culus yahay waa taqaanaan aad cusub xaqada marka laga hadla version-kiisa EF-ka marka laga hadla Canon DSLR-rada kan baa ka yara fudud oo ka khafiifsan laakiin still hadii aad tahay qof oo socdo oo u safro meelaha kala duwan u safro caalamka u safro boorsadaada culays buu ka soo korin doonaa soo waa inaad ogaataa waa disadvantage kale ee uu lenskan leeyahay una cad yahay maybe colorkada cadaanka buu ku soo baxaa soo hadii dadka oo colorada waxyaabahaas ka fakara tahay maybe waxa laga yaabaa inaad isleedahay oh maybe cadaan ma rabo madow baa rabo ama wax kasoo colorkan is another thing ay tahay waa niyad inaad ku haysa waxa kale oo aad disadvantage kamid ah skill buu u baahan lenska inaad isticmaasho xoogaa wuxuu kaaga baahan skills because stabilization-ka iyo focus mode-ka iyo all these things different mode-yada uu leeyahay waxaad u baahan tahay xoogaa kind of skills inaad haysata oo la xiriirta kaamirada iyo sida wax looga duuba iyo sida wax looga soo saarto so dhinacaasna waa arrin kale oo ay muhiim tahay qofkii inuu niyadda ku hayo oo ah marka aad lenskan adeegsanaysa maxaan u baahanahay oo skill baad u baahan tahay aad u isticmaasha laakiin haddii aad tahay qof dhalinyaro ah ee xirfadle ah dabcan waxaan kaga sheekeyaa qofka inuu sameeyo wax loo yaqaan reinvestment I mean don't cash out wax kasta oo xirfadan ka soo gala hadii aad cash out gareysay aad la soo baxday aad laqada aad kab siisatay aad saacad siisatay aad caloosha u sii dayso I mean business ka saas uma shaqeeyo especially marka de brand laga shaqeynayo oo qofka isaga uu is dhisay waxaan kula taliyaa waxa ku soo gala saaxiibayaal wixii asaasiga nolosha aad kaga maarmin reinvestment in aad dib ugu sameeyso so this will be reinvestment oo aniga aan ku sameeyay brandkayga Cabdijaliil Show waxaan rajaynayaa inuu barnaamijyadan soo saaray iyo mustaqbalka iyo kuwa hadda aan ka shaqeeyaba uu noqdo sabab cajiib ah de lenskan aan u adeegsado ayuu noqon doonaa so waan tijaabin doonaa saaxiibayaal waxa kaamiradan hadda iga duubay oo aan ku tijaabin doonaa oo ila joogo saaxiibkay Muhaz oo lenskan ka horeeyay 50 mm isagana ila duubay oo aan nagala qayb qaatay laakiin sidoo kale kana waan tijaabin doonaa saaxiibayaal bacdi ayaanu ka soo furnay marka aanu eegna muuqaalo ayaanu ku duubin doonaa sawir ayaanu ku qaadan doonaa waana idin la soo wadaagi doonaa sida ay u eegeen sawiradaasi iyo muuqaaladaasi marka let's go waxaan ku xiri doonaa kaamirad baan ku xiri doonaa
flashkina waa ka soo bismillaahir rahmaanir rahiim soo aan ku xirna markaa waxaan ku xireynaa bismillaah kaamirada sawiraan ku qaadi doonaa ya jawigo macaan soo ma waxa la jir jawi cajiib ah wallahi soo maahan kaamiramanka wuxuu leeyahay jawiga lagama sheekeyn karo saaxiib yaal soo saas buu ekaaday markaanu kaamirada ku xirnay R6 baan ku xiray iminka R6 Mark II baan ku xiray soo bismillaahir rahmaanir rahiim saaxiib yaal waqtan saan bay u egtahay bismillaah so flashkana waan ku xiri doonaa isagana let's do this yeah let's do this so it looks amazing saaxiib yaal looks amazing it's wonderful it's quite heavy aad buu culus yahay laakiin marka loo eego 15.5 aan haysta I think ka baba ka fudud baan u maleynaya xaqad marka laga hadlo laakiin ma fudud because one disadvantage ka aan sheego oo kamid ah is quite heavy mala safarka iyo waxaas especially aniga waan safraa laakiin haddana kama maarmo oo ku qasbanahay inaan haysto hay bala fiirin hay come on let's do that guys bismillah okay bismillah oh my god waxaan waa adduun kale saaxiib yaal waa duni kale yaa akhay waa duni kale out focus suudkeyga inaan soo qaata ahayd saaxiib yaal suudkeyga maanta inaan soo qaata ahayd laakiin soo saaxiib yaal sawiradan waa sawirada ugu hore aan ku qaadnay guys sidoo kale waxaanu eegi doonaa qaar ka mid ah muuqaalada aan ku duubay soo sawirada waad aragtaan saaxiib yaal qaarna waa maalintii qaarna waa inta uu gobolka ka dhacay ayaan sugeynay marka haddii aad sidoo kale eegtaan muuqaaladana waa kuwan qaar ka mid ah muuqaalada aanu ku duubnay muhaas oo soo socda iyo muhaas oo sii socda iyo habeen iyo maalin intaba aad aragtaa marka guys muuqaaladan ayaan sidoo kale ku duubnay haddii aad aragtaan muuqaaladan waa handheld guys finally waanu soo gabagabeynay reviewgii aan ku sameynay lenskan waxaad aragteen sawirradaan ku qaadnay waxaad aragteen muuqaaladan ku duubnay aniga iyo saaxiibkay muhaas ayaa ila socda maasaye saaxiib intaan bahasha wadnay maxaad fahantay maxaad aragtay maxaad dareentay intaas soo galay xasaaran ka hay intaas soo bislaay oo kugu qiyaam hay bas marka hore waxa la yaabanaa $5,000 kaamirada 4,600 kaamirad ma hatan 4,600 waa lacag badan dhahay ma fahanti laakiin marka aad shaqadii qabanayso waa qaata soo maahan ilaahayna ku barkay saaxiib waa u qalantaa saaxiib investment waa saaxiib yaal reviewgii lenskan aanu ku sameynayna saaxiib yaal intaan ayaanu ku soo afmeeraynaa kanaalkan ada awoodid la gado ada awoodin hasdhiib maas culi haddii aad awood kariya gadalenska haddii aadan awoodin naftaada ha kalifin of course maaskooyo axsan kadib waanu soo gabagabaynaynaa muuqaalka waanu soo xiraynaa gobolka ayaa noo dhacay muddo think 2 saac ayaanu review ku sameynay lenskan finally waxaan ogaanay 2 saac kadib sababta waqtigaas intaas lagu qaato waxa waa inaan tijaabiyo nolosha caadiga ah sidoo ku noqon doono hal haddii aan mar kale ku celiyo lenskan uu culus yahay waa very heavy lens waaye oo very heavy xaqiiqada marka laga hadlo
marka haddii maybe dadka cajislowga aad tahay it's not for you ma lagu talagalin waxa laga yaabaa culeyskiisa inaad xamili weydo baa laga yaabaa marka kan waa you can get rid of this kan waa iska qaadi kartaa waad la socotaan tan laftirkeeda waad iska furi kartaan oo we can get rid of this tan laftirkeeda waad iska qaadi kartaan laakiin still lens kan waa lens amazing it has low light ayuu support gareynaya waqti waxaan sugeynay inta gabalka uu dhaca marka sawiradaad aan ku qaadnayna waad aragteen marka gabalka uu dhacay marka low light kana aad buu u fiican yahay haddii xitaa leer fiican haysanin oo meesha aad ku duubaysa leerkeeda aadan happy ku ahayn so probably marka qaarkood low light oo habeenka aad wax duubaysa low light ayuu support gareynaya marka saaxiibayaal aad u mahadsantiin lens kanaalkan waxaan ku soo gudbin doonaa barnaamij la xiriira dhalinyarada iyo teknolojiyadda iyo review lensyada iyo agabkaan ku samayn doonaa waa kanaalkii dhalinyarada Soomaaliyeed aad u mahadsantiin aniga iyo saaxiibkay isku duwan waxaan idin leenahay guuli gownimo bye bye